waxaan rabaa dagaal hore ka galaya xanfareeshaan siina xanfareeshaan siina gudoomiyihii baarlamaanka qabtay mooshinkii aan ka keenay madaxweynaha maanta waa maxbuus waa ka xunnahay inaan naadino oo sheegno laakiin madaxweyne xiraayo gudoomiye baarlamaan weerarayo oo ka xiraayo albaabada xildhibaanada ay soo ziyaaran karin wax lala yaabo fariinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyay madaxtooyada oo ah gurigii uu gudoomiyaha baarlamaanka deganaa haddaba Soomaaliya ogaada xanfareesha waaye wixii soo baxay ku dambeysana nala socda social media iyo telefoonada iyo idaacadahana waan ka hadli doonaa aad iyo aadaan maxaan u soo dhaweynayaa gudoomiyaha hogaamiyaha wadajir wajiyada dadka halkan jooga oo faraxsan oo qorraxdaas ku faraxsan ayagoon waxba la siin laakiin rabitaankooda u yimid iyo kuwa ku suuxaya daljirka dahsoon inta xalay 8 saac la keenay ee laga qaadayo maanta inta suuxeen gaajo quraac lama siin biyo lama siin ayagoo suuxsan hadba ambalaasku ay qaadayso farqiga u dhaxeeya kaas waaye marka waa maasantiin waxaan rabaa hal kelimo kaliya inaan ku soo gunaado waxaan ka mid ahaa aniga xildhibaanadii madaxweynaha hadda xilka haya ee mooshinka laga geeyay xildhibaanadii wax ka doortaan ka mid ahaa kadib markii hadallo macaan iyo niyad fiican aan ku aragnay aan ka dareennay maana ogeyn wuxuu samayn doono laakiin 2 sano markuu shaqeeyey keligiisuna yimid dalkana ma joogi jirin boosuu iska wad markii uu yimid oo la doortay wixii uu sheegtay oo dhan oo uu yiri waa qabanayaa hal shay kama qaban bishan bisheedii kale sanadkii hore ayaan daro aad iyo aad u weyn ayaa ka dhacday magaalada Muqdisho oo lagu weeraray madaxda iyo siyaasiyiinta xisbiga wadajir maalintaana waan cambaaraynay haddana waxaanu leenahay maanta waxay daliil u tahay inaanan cidna la caburin karin qofna ra'yigiisa aanan lagu beegsan karin dadka Soomaaliyeedna aanay ogolaan doonin mudane Cabdiraxmaan soo dhawow dadka Soomaaliyeed waxa ay ka sugayaan oo ay kaaga fadhiyaan inaad ugu abaalguddo taageeradii iyo garab istaagga ay kugu sameeyeen marar badan waa isweydiiyeen maqnaashahaaga waa isweydiiyeen dalkani qofkii xabad lagu tuuraba hadduu iska cararayo meeshaan ma aanan soo gaarneen karaamo iyo sharafna ma yeelaneen mana yeelan doono waxaan jeclahay in dhammaanteen aynu fariin dhab ah u dirno dadka doonayo in xabad wax lagu xalliyo inaynu fariin dhab ah u dirno waa laga soo gudbay way soo dhammaatay xilligeedii lama joogo qofna ra'yigiisa laguma caburin karo waxaynu wada leenahay oynu ku wada joognaa waa dalka oynu wada leenahay dastuurka oynu wada leenahay sarreynta sharciga oynu wada leenahay